Naan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo isugu soo baxay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa taageero mug iyo miisaan loo muujiyay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan furimaha dagaalka iyagoo sheegay in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markasta ay garab taagan yihiin waxaanay sheegeen in magaalada Garowe lagu murmi doono ereyadii ku dhawaaqayeenna waxaa ka mid ahaa surursan lahayn iyo dad hub dooran lahaydeenba Soomaaliland way idin soo socotaa nimankaad qabsateena waxba ku faanina garaadka loo keenay wallahi ablaayeen saaw gawracayna ama waasha ama hooyina isaaq waa mid ay israacsan ee guul baan leeyahay ama garaba ka qaaxa ama boosaas qabto waa la idin soo socdaa meel dayda meel hay haweenayna reer Soomaaliland nahay haweenayna reer Soomaali waa rag iyo dumar dhalinyaro waayeel caruur iyo iroole waxaan u nahay mid waa galayna dagaalka ballan ku galay fihima qaatay wayna ku kala jeexa waan kala taaganay hiiriyaha isaqiya daarad baynu nahay hadaara fihima qaatay ku kala jeexin Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankayga waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo shacabkayga reer Soomaaliland sida xilkasnimada la sharafta leh soo muujiyay ay soo taagay waxaan leeyahay mid baanu nahay hadaanu nahay Soomaaliland waxaan leeyahay mid yar iyo mid weyn hal qof baanu nahay ciidamada qarankana way guuleysanayaan waana guuleysan jireen mar walba waxaan leeyahay dumarka hadaanu nahay waxaan u taaganahay dumarka midida ku dagaalamamayna midi bi'an baan ku dagaalamayna meel baanu saari doonaa rag ayaguna ragina ku filan oo ma baqayo laysana waa arsanaysaan ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay waxa tiiragii 77 xoreeyay Soomaali oo dhan waxa tiiragii siyaad bare boqolka taangi kaga furtay kaaraya aakayga geesiyaal aan loo baqay baatiin anigu faqash ma arki karo faqash abay laba jeer bay dil soo xidhay faqash ma arki karno bariyaawlis ma arki karno ragayga sida u birayseen aadilmadeedii u biraysay ayaa lagu biraynaya saadooreey saawleedahay baa lagu biraynaya goobta ma jabtay way leecdaa waynu ka soo kabanaynaa insha Allah 8 bilood baynu garaacaynaa madaxa ka gumaysanayna ayaanu soo soconaa adeerada toorey badaratay anagu waxaanu ku dagaalamaynaa kaarayaal wadanaan imanayna ciidankayga qaranka ma jabin mana xumaan waxna ku kuma dhixin guul baa taagaday guul faqash ba waan ka noolay faqash rajiimkii siyaad baraba waan ka noolay ragii dhiyay way nooliin waa ii xaadir waxaan doonayaa Axmed Karaash inaan laba kalmadood dhahdo Axmed Karaashow 30 sanadood ayaad adigoo nin laaya Axmeda oo sheeganaya dhulbaante aad cag soo dhigwada laasxaanood maanta nasiibkaaga haddii aanan ku qabanno isagoo noolay ka keenin sadqa ka tirin maayo ciidanka qaranka huwanta inay ciidanka Soomaaliland aanu jabin marnaba aanu jabin inuu guuleysanayo in Garowe lagu imanayo ina dadku wada Ibrahim Koodbuur wada yihiin ina botaana waxa ku sheegay aanu jabin Ibrahim Koodbuur geesiyaasha kale ma dhiman ginta Soomaaliland waa Ibrahim Koodbuur ma dhiman waa Maxamed Ali ma dhiman waa Lihle ma dhiman qaranka Soomaaliland waxaanu sheegayaa inaan hiiliyahooda la garab taagantay ciidanka qaranka meedaan guul daraysan guul bay soo wada bilood guul baan ku joogteen waxaan leeyahay huwanay waxa tahay fulay jaanis helay tahay Faysal Cabdi Bootaan 350 askari oo idinka ayuu dhigmaabaan yiri calanka tawxiid kale ayaa shaqaynaya insha Allah bismillaahi kariim waana idinka guuleysan doonaa Garowe isugu iman doonaa gawrac baan inoo dambayn doonaa intii naalka taagan diyaar ma tiina la saacad gallo ay ciidankeena isqarab taagan Faysal Cabdi Bootaan rag baa u nool rabbi baa u jira rag baa u nool ciidanka qaranka guuleysta ciidanka qaranka rag baa u nool ciidanka qaranka rag baa u nool ciidanka qaranka rag baa u nool Faysal Bootaan ayaad ku saamaysaan Morgan inaan hayna nolol soo saarmay maxkamad heeg waxaan la jigsanaynin waxaan u sheegayaa huwan laascaanood bad ka sheekaynaysaan waa inoo Garowe iyo gawrac baan idinku yiraahdaa warragan meesha jooga waxa kala bangiye bur soo qaata annaba soo xidhan dharkii qorigeyga soo qaada waxa kala ragga meesha xagga daba jooga war qoriyo baaga kabiila soo kiijista war wacad raggan waa maanta way naga guuleysta waanu soo qaada anigu waxaan taageersanay ciidamadayada qaranka
waxaan taageersanahay ciidamadeeda qaranka waan barbar taaganahay dhalintii asalan baan ahaa dhalintii u soo dalka soo dhibaatootay baan ahaa waxbarashada kuwii ku seegay baan ahaa rajiimkii dowladda kuwii iska kiciyay baan ahaa maantana waan u halgamayaa dalkayga hooyo waan u halgamayaa halyeynaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo arday ah oo aan saaka iskuulkii tagin oo u soo baxay banaanbaxa qaramaynta Soomaaliland waan waxa leeyahay haddaan loo arin miyaa looyi ciidanka qaranku uu guulaysanaya Faysal Cabdi Bootan wax loo soo qaban doona insha Allah taala sida ugu dhaqsiyaha badan leh garaad Ismaaciil daga galaalka ina Jabuutaawi madaxweyne Firdhi afartaba sida daga ciidanku gacanta ku soo qaban doona Soomaaliland waa mid waxba yaalayna kala gurin waxba yaa sawir been leeyna galin Soomaaliland way isku duubantay waana mid waxba yaadan qabiil soo qabsanin bari cusba sheegaya waxaan kale sheegayaa inamada yarad sulka iskaga taagsan naagihina dhulbaante naag walba waxaan doonaynaa inaan halkeeda ugu nimaadno waxa weeye hadal badan haamama buuxsho diyaar baanu nahay markii horena raggii dhaawaca faranta ka shaqeynayaan haddana diyaar baanu warta ciidanka qaranka Soomaaliland waa mahadsantihiin waa mudantihiin garab iyo gaashaan waanu idinla barbar taaganahay nafta iyo maalkuba waa naga diyaar awal waanu idinka jiifnay maanta waanu kacna waanu midaysanahay haddaanu nahay beesha Soomaaliland degtaa dhammaanteeda Sheekh Isxaaq bin Axmed dhalay hal midaanu ma kala qoobin haddaanu kala qoobnayn maanta waanu midownay hil iyo hooba waan idinla dul taaganay anagoo hooyooyinkiina waxa weeyaan fiimo quujo waxaanu leenahay adu maydood ku joogsanaysaa adigoo nool baanu gaari dabada kuugu xidhaynaa maanta qarankayga uma dhitino umana biqi doona Soomaaliland xuduud waan difaacaynaa waan idin garab taaganay insha Allah waxaan idin sheegayaa dadkiina halkan maxaabiista ku dhagaxaanta ku gurayow ku gowracayow kuwiina madheeraan ku siinaa suqaar iyo beer qaranku waa mid Soomaaliland waa mid labaad maaha waxaan leeyahay garaadka yar ee koofiyadayda kala sitow way noo giroobe ciidanka asaa u galaysaan anagu ciidankiina dilimayna laakiin waxaan ii sheegaynaa inaanu iman doono Garowe annagoo isku duuban jaanis yar baad naga hesheen laakiin ballan waxa noo ah inay laascaanood noqon doonto meel galangelina ama fal soo duuduuba ama dameer soo gowraca ama fardaxad cad soo dira waxa weeyaan wayna Garowe ciidanka Soomaaliland guul garabkiinaanu taaganahay waa hooyooyinkii waanu soo baxnay ducaanu haynaa duco garabkiinaanu taaganahay asal bootaan baymi wallahi hadda ka dhaaco inta ka dhaaco u dar ilaahay hataa u dhinto adaa u dhimanaya wallahi hadaa u dhimanaya inamada yareed birbirayna saambaymi waa anagu gabbanahay ma birayno anagu maxaabisan haysano ma birayno saas naftana ula dhaqana idinka aymi Garowe iyo birays iyo gowrac inaanay shaayagayn waa ciidankayaguna waan ugu kalsoonay naagana ma barbar socdaan aniguna inama waan ka dambe waa Saciid Cali Cusmaan Xaalays telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada Burco xarunta